barakaatu kusoo dhawaaya barnaamijkeena hore usoo wadnay ee ahaa barnaamijkeenu afka soomaaliya ku baraynay dadweynaha soomaaliya u baahan inay bartaan afkooda hooyo maantana waxaan iin soo diyaarinay cashar kale ku saabsan afka soomaaliga daawasho wacan haddaba qoraalkayga waxaan ku bilaabaynaa dalka soomaaliya waxa uu ku yaalaa geeska afrika waxaana uu leeyahay xeebta labaad ee ugu dheer qaaradda afrika aan ku celiyo dalka soomaaliya waxa uu ku yaalaa geeska afrika waxaana uu leeyahay xeebta labaad ee ugu dheer qaaradda afrika labada badood ee soomaaliya ku yaalla waxaa magacooda la kala yiraahdaa badda cas iyo badweynta hindiya aan ku celiya halkaa labada badood ee soomaaliya ku yaalla waxaa magacooda la kala yidhaahdaa badda cas iyo badweynta hindiya halkaa waxaad gelinaysaa hakad dalka soomaaliya waxa uu leeyahay laba webi oo lagu kala magacaabo jubba iyo shabeelle halkaan ku celiyo dalka soomaaliya waxa uu leeyahay laba webi oo lagu kala magacaabo jubba iyo shabeelle dalka soomaaliya waxa uu leeyahay afar xilli oo kala ah gu jilaal dayr iyo xagaa halkaan ku celiyo dalka soomaaliya waxa uu leeyahay afar xilli oo kala ah gu
jiilaal halka labaa ka maqan jiilaal dayr iyo xagaa. dalka Soomaaliya waxa uu hodan ku yahay kalluunka beeraha iyo xoolaha nool, waxaana uu leeyahay shidaal badan. halkaan idinku celiyey. dalka Soomaaliya waxa uu hodan ku yahay kalluunka beeraha iyo xoolaha nool, waxaana uu leeyahay shidaal badan. dhammaan casharka hore aan ku celiyo. dalka Soomaaliya waxa uu ku yaalaa geeska Afrika, waxaana uu leeyahay xeebta labaad ee ugu dheer qaaradda Afrika. labada badood ee Soomaaliya ku yaala waxaa magacooda la kala yiraahdaa badda cas iyo badweynta Hindiya. dalka Soomaaliya waxa uu leeyahay laba webi oo lagu kala magacaabo Jubba iyo Shabeelle. dalka Soomaaliya waxa uu leeyahay 4 xilli oo kala ah gu, jiilaal, dayr iyo xagaa. dalka Soomaaliya waxa uu hodan ku yahay kalluunka beeraha iyo xoolaha nool, waxaana uu leeyahay shidaal badan. haddaba qoraalkaan idiin soo diyaarina ujeedadiis waxaa weeye inaad ku barataan habka afka Soomaaliga loo qoray sida loo akhriyo. waxaa laydinkaga baahaya inaad hal jeer qortaan akhrisaanna. afka Soomaaligu waa dhaxalkiina oo adinku xaq aad u leeyahay cidna aysan idin lahayn. marka ummadda Soomaaliya waxaan leenahay ka faa'iidaysta casharadan bilaashka ah. waxaana idiin soo wadnaa kuwo kaloo fara badan. waxaanaad ogaataan afka Soomaaliga inuu yahay lama huraan. cilmigan asaga ayaa laga galaa. waa salaamintii intiina dhegaysanaysa. dhammaan waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.